Ogow walaal, dadka waxaa ku jira caruur danyar ah oo aan haysan waxay cunaan, maxaa yeelay waxaa ku adag inay helaan nolol maalmeedkii ay ku noolaan lahaayeen. Haddaba bal u fiirsada walaalayaal, gabadhaani da'da yar waxay halkaasi u fadhisaa. Dadka waddada maraya waxay ka helaan ama waxay u soo taagaan inay ka qaadato. Waxay gacanta u hoorsanaysaa dadka waddada maraya, balse dadku waxay yihiin dad iska indha tiraya gabadhaasi oo iska ag maraya, waayo ma dareensana baahida haysa gabadhaasi. Bal u fiirso, waxay caloosha gacanta ku haysaa, waxayna dareemaysaa gaajo aad u daran, halka agagaarkeedana lagu iibinayo maqaaxiyo fara badan oo dadka qaar ay ku iibsanayaan roodhi iyo raashin kala duwan. Bal u fiirso walaal, maqaaxidan kama dheera, waxayna u jirtaa taakooyin yar, waxayna u jirtaa masaafo aad u yar. Dadka qaarna ayaa ka soo iibsanaya maqaaxida ashyaa kala duwan, balse gabadhaani ma haysato waxay ku soo iibsato. Waxaa soo agmartay gabar wadata roodhi, balse aad bay indhaha ugu fiirisay. Gabadhii ayay u istaagtay si ay u weydiisato roodhiga, balse gabadhu waxay ula dhaqmaysaa dhaqan xun. Intay ka dhaqaaqdo ayay gacantana ka dharbaaxaysaa. Ayadoo sii fiirinaysa ayaa gabadhii roodhiga u diiday ayaa waxaa ka dhacday lacag. Bal u fiirsa gabadhaani sida ay u dhaqmayso. Lacagta ayay ka fikirtay, way u baahan tahay, balse waxay go'aansatay inay dib ugu celiso gabadhii lacagta ay ka dhacday. Gabadhii oo taleefan iskaga hadlayso ayay ugu qaylisay cod dheer. Gabadhii ayaad ku faraxday lacagtii, waxayna gacanteeda ka saartay rootigii ay markii hore u diidaysay. Ogow, caruuraha qaar ayaa aad u baahan, balse ma dareensana dadka wax haysta. Gabadha ayadoo aad u faraxsan ayay soo dhaqaaqday, waxayna aad u sii fiirinaysaa gabadhii wax siisay. Ogow, caruurta markay wax helaan waxay dareemayaan farxad aad iyo aad u weyn. Haddaba walaal, u kaalmee caruurta yaryar ee aan waxba haysan.